عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad walaalayaal halkan waa janaalkiina maad bare isku soo noqod wanaagsan. Walaal waxaan ka coddaanayaa marka hore haddii ardaydu qaar ay yiraahdeen ma arki karno muxuu ahaayay ii sheegeen linkii aan soo dhigay laba link oo kala duwan aan soo dhigay linki telegram ah oo markaad soo gasho geynay telegramka mid lambarkayga oo lambarka caadiga intaan soo raaciyo lambar ah oo soo link oo lambarkina ah yaan ku soo dhigo intuu ku soo qaado WhatsApp ku keenaya ma aqaan aniga kulli mobile kale aan fiiriyay way macnaha way keenaya way leeyihiin de qofkii ay markaas aan ka arki karin meesha qaybta waxaan soo dhigay oo macnaha comments-ka haddaadan arki karin dabcan comments-ka xogaa wax si ka yihiin marka waxaan weydiin lahaa commenting horta ma arki kartaa aniga commenting aan soo dhigaa commenting ma arki karaa ma arki kartaa dad arki karin xogaa waxa fiican commenting iska yar hagaajiso bal waxa ka qaldan iska saxda insha Allah taala halkaas fiican aniga soo dhigaa mobile kale aan ka tijaabiyo fiirina waa jiraan ayagana waa sax waa laga tagi karaa lafteeda hal mobile arkay oo ah aan lahayn message commenting aan laga tagi karin ma commenting aan lahayn dabcan waxaan u fahmay marka commenting inay u degsaneen oo macnaha ay ka ahayd garaysan tahay marka haddii aad arki karin oo commenting aan arki karin fadlan aniga kulli mobile kale fiiri waan ka arkay bal wax iska sax insha Allah taala linkiga marka midka lambarka WhatsApp ku keenaya kan Telegram ka ana asagana waxa jira Telegram ku keenaya mid kale waxa jira asagana oo link kale asagana marka aan soo dhigay asagana WhatsApp link ah oo asaga casharada caadi ku geeyo marka ku dhufataba waad share gareyn karto saaxiibada u share gareyn karto marka ku dhufato saaxiibada u share gareyn karto WhatsApp wuxuu geeyaa WhatsApp geena wixii WhatsApp oo saaxiib la tuubo macnaha aad u share gareyn kartaa marka ma aqaana si ay wax yihiin insha Allah taala bal horta meeshaas bal mar intaad soo gashaan soo raaysan igala soo xiriir WhatsApp kaas midka lambarkaana bal soo dhigay labadaba soo dhigay doo alidmo qaybta commenting aan ku reebaya marka insha Allah taala bal hoos hal isku day insha Allah hadaad arki karin bal kulli xal ma aqaana kulli mobile ani aan tijaabiyo waan arkay waabay hadal ku celin aad iyo aad baad u mahadsantiin bal hal isku day insha Allah taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد ما أنت عشان كانوا حويان was يا وا they use was and wa طبعا سنستعملها إن شاء الله تعالى لو أنا أري ولا أري الله استعمالها for yesterday شرع يا الله استعمالها ومثلا ومحوها وعلى استعمالها مثلا وهي الشرع كلا بعي يا الله استعمالها إن شاء الله وكشكين سو إن شاء الله أنت عارف شو نقول الورا وانيكي لاوي قف كادي أدوه عشبتها وريال سبسكرايب نورده مع إيشي مع سبسكرايب ده كمالك سيتابو all سيتابو عشان إن شاء الله تعالى ما يكون صوت ده دوران حدي الملس جزء حاول كنا ولي ونص لايكره كومنتس وحنوه إن شاء الله تعالى وحي فكر كذا وحي دينجلنا وحي معناها وحاجة عنكو خلدنا معناها نجوا معناها واحد تصارع ثاني صار كذا كربنا إن شاء الله تعالى نور بتان haddii aad meesha joogtiin sidoo kale like noo taabo loo share garay comments waxaan ku raadaya wixii fikir dheeriya oo si wax ku wanaagsan la hawsha lagu wadi lahaa adii dhiirigelin insha Allah taala maalinka dhiirigelin insha Allah taala okay was and wa use isticmaalka of was isticmaalkeeda and wa isticmaalkeeda was ereyga leeyahay to be used waxa loo isticmaalaa for one person hal qof or ama sana calaamada stroke ama weeyaan think one thing hal shay baa loo isticmaalaa was to be used for one person half of or one thing examples to sale the man ninka was wuxuu ahaa busy mid macnaha mashquul ah the man ninka was wuxuu ahaa macnaha shala loo isticmaalaya waxa la wixii lagu soo tago past ayaa loo isticmaalaa was wuxuu ahaa was marka uu ahaasho macnaha waa wax la soo dhaafay waqti hore laga sheegaynaya busy من مشغول سنة لكن لا حبوج جري بالغير لكن هو مشغول سنة عشان الله ما أكنه هو مشغول سنة وصوحه busy مشغول the cat بصدق وصوحي عيد راني مد أرديسة أقول أرديسة شلون كلام أنا مركيها على سوق الملوى وقت بعد سمعين نساء the cat بصدق وصوحي عيد راني مد أرديسة هذا أنا قاب كذا استعماله مقتصية إذا تقعد إن شاء الله تعالى
markii xilli sameyntii kulli insha Allah waan gaari doonaa doolidmo iska ka cajisin dhammaan ninka was waa bismi mashquula the cat bisada was waxay ahayd running mid ordaysa was waxay ahayd ama the cat bisada was running way ordaysa marka macnaha halka ku waabi the cat bisada was running way ordaysa halkaas ay aniga was waxaan ahaa sick mid xanuunsan yesterday shala I was sick waan xanuunsanaa yesterday shala ay aniga was waxaan ahaa waa marxalad aan ku sugnaa weeyaan was waxaan ahaa sick mid xanuunsan yesterday shala waan xanuunsanaa yesterday shala ay aniga was waxaan ahaa sick mid xanuunsan yesterday shala waa ereyga laadana asagana waa jamac baa loo isticmaalaa wax badan baa loo isticmaalaa was kali buu ahaa waa ereyga laada waa baad iyo codkiisa waa where iyo waxa ma dhaysid waa saasaleeda to be used wuxuu ahaa mid loo isticmaalaa for more than wixii ka bata one person hal qof or amase one thing mase hal shay one mana more than ka badan more badan than ka dantas waa ka more than to be used loo isticmaalaa waana for more than wixii ka bata one person hal qof or amasena one thing mase hal shay one thing hal shay examples tusaale badan oo kale jamac baad samaysay examples the pupils ardaydii waa waxay ahaayeen ready kuwa diyaar ah shala markuu macalinka imaanayay ardadii way diyaarsaneen waa macnaa waa shala wax lasoo dhaafay weyn the pupils ardaydii waa waxay ahaayeen ready kuwa diyaar the pupils waa ready now when you came to school the pupils were ready markaas uu kiimanaysa soo daab inuu baqleenba the pupils arday waa waxay aan ready kuwa diyaar the cows lo'di ama sa'ihi cows waan jamciyey isma ku daray waa modomo bay loo isticmaalaa waa waxay ahaayeen missing kuwa maqan last night xala the cows were missing last night wanoo lo'di xala way maqneed meelay joogin the cows lo'di ama sa'ihi waa waxay ahaayeen missing kuwa maqan last night xala last wala soo ugu dambeeyay nightna waa habeen ugu dambeeyay marka okay xala weeyaan the cows were missing last night xala say way maqnaayeen you adiga waa waxaad ahayd very happy ku aad u faraxsan to see me inuu arka inuu aad ugu faraxsan jale ama maalin hore yuudan marka laba meel xamaarsantay adiga oo kali ah iyo adinka oo jamaca marka si walba ha ahaatee yuuda waxay qaataa wax alla wuxuu jamaca qaato ayay qaataa wax mufrad yeelaa marba taabanaysa yuuda marba wax mufrad leeyahay ma taabato waxay qaataa wax alla wuxuu jamac qaata ereyada mufrad kalimaadka jamaca waxay qaataan ayay qaadanaysaa you waxaad ahayd very happy ku aad u faraxsan to see me inaad aragto you are very happy to see me aad u faraxsan inaad aragto adiga marka insha Allah ta'ala thank you for listening aad ugu mahadsanid dhegeysiga walaalayaal la socdo wanaagsan xogaan waxa kale jirtay dad aan manaha ka maqlay cashirkii ma arki karno fadlan farta waan weyneeyay waxaan isticmaalan inta badan waa notepad ka waaye notepad ka oo fartiisa ay weyn tahay haddaan wordka isticmaalo farti way yaraanaysaa marka insha Allah ta'ala xogaan marka insha Allah waan soo habeyn doonaa bal sababta marka loo arkay anad waan dhageystay oo sidaas meel walba qof wax soo diiday mobile garan qaada waan tijaabiyaa caadi waa loo arkayaa waa la dhameystiran karaa marka qaabku weera hada adkana jeefshif u dhigtaa doontaan insha Allah bal marka kale idinka yaqaan soo dhigataan bal cilad uma jirtay bal hala fiiriyo insha Allah ta'ala mobile caadi waa dhageystaa waa dhameystaa mobile kale u fiiriyo ayaga dadka oo dhageystay kulli caadi waaye marka qofkii aad iska cabanayna mobile ka iska hagaajina oga setting ka xoga ka yaraalaysa laga yaaba thank you very much insha Allah aad baad mahadsantiin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh